waxaan u yimid inaan warqadii go home-ka ka goosto immigration sida awadeed aan wadankii iskaga noqdo Somaliland Hargeysa Somaliland dhalinyaradi Somaliland waxaan leeyahay waan soo socdaa waxba badaha ku dhimanina oo maxaa sababay markaa inaad ka laabato wadanka Switzerland oo wadan Europe ka mid ah waxaa sababay saaxiibo markii hore deeqyadii aan ku riyoonayay maadaama gaari waayay oo wadanka laga siiyay warqad rejectiga ama negative sida awadeed riyadii aan ku riyoonayay himiladii aan doonayay maadaama ay ii suuragal weyday inaan iskaga noqdo wadankana aad buu bixiyaa rejectiga wadamadan Yurub tiimada marka waxaad leedahay waxa la siiyay go'aankaygii aan macnaha codsigaygii magaliyay aan dalbaday ayaa waxa la diidma la iga siiyay ka bacdi markaas waxaan go'aansan wadankii ka laabto inaan wadankayga ku noqdo rejectiga waxay siiyeen diidmo qoxoontinimo maxaa dhalinyaro badan baa jiro diidmadaas kale la siiyey oo Yurub meelo ka mid ah haddana u sii gudbay maxaad ku go'aansan adiga wadankaaga ugu laabatay meelaha kale ugu sii gudbooyay waxaan uga noqonayaa in Yurub doonayaa inaan uga noqdo sababta aan uga noqonayaa waxa weeye kuwii ugu horreeyay Yurub bay wada taagan صح sida awadeed waxaan doonayaa inaan iskaga laabtay intuu Yurub waqti ugu leeyahay kulba meel cayr ka qaadan lahaa kulba meel aan qoxoontinimo isaga dhiibay adigu Yurub kama timin waxaan soo galay in bishii afraad 2015 waana soo tahriibtay waana soo tahriibo dhibaato badan waan soo maray Libyaan soo maray Suudaan baan soo maray badda Mediterranean-ka soo maray halkaasaan Talyaaniga ka soo galay kharash badan oo ka soo baxay kharash badan oo iga soo baxay kharash intee ka soo baxay waxa iga soo baxay 7500 baa ka soo baxay naftaadana aad halis badan soo gelisay kaba dambaystina markii aad halka u soo socotay aad timina waxa kala kulmay go'aan diidma oo codsigaagii magalin doonimo ka bacdina hadda dib baad ugu laabanaysaa magaalada Hargeysa Hargeysa waad u xistay Hargeysa aad iyo aad baan ugu xistay stress bay yaala waxaan stress ayuu yaala ma jiro laakiin usbuucii hore sidaan ku maqlayna ilaahay weyn ee raajicuun 450 qof oo dhalinyaro ku dhintay badda Masar iyo Talyaaniga u dhaxaysa waliba u badan reer Hargeysa marka maana ka fikir dheerahay farqo ma u dhaxan adigoo Yurub inta timi maanta Hargeysa dib ugu laabanayo oo sida aan ognahayna muddo 4 cisho aad aan ku celcelinay marba ka dhownimanay anigoo diidan inaad aad ka soo fikirto jeclaa oo maanta ay noo tahay balantii labaad ee immigration nimaadno maantana aad waraaqahaaga ka qaadanaysay go home-ka dhalinyaradaas hadda iyo inta u soo xidhan maxaad kula talin lahayd waxaan kula horta waa kaafiye kala dheeri fikradda marka hore Yurub laga aaminsan yahay marka wadankii la joogay iyo marka Yurub la yimaado waxyaabaha badan ee ku arkaysatay waa kaafiye kala dheeri dadkaasina horta waa sideedii aan markii horeba ahaaday himiladeeda dayacti doontii la tagayso kama joogsanayaan lahaa markii hore iminkaas laakiin waxyaabihii yaalay waan ogaaday aad iyo aadna waan uga xumay dadka ku dhintay badda iminka waxaan leeyahay dadka joogo iminka wadankii u soo xidhanaya Yurub waxaan kula talin lahaa inaan dhammaan Soomaaliya joogo meel kasta ay joogaan Muqdisho Puntland Hargeysa dhalinyarada Soomaaliyeed joogta Jigjiga dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaad u sheegaysaa farintaada waa maxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee iminka u soo xidhanaya inay Yurub yimaadaan waxaan kula talinayaa inay iska joogaan wadankooda ay aaminaan iminka waraaqahan gacanta ku sida waa maxay waxa weeyaan waraaqihii noqoshada go home ma tus kartaa bulshada Soomaaliyeed si ay ugu qancaan inaad tahay nin wadankiisa ku soo laabanaya warqadaas waa tii go home-ka dhammaadana yaali marweyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa taa warqadii dayib uu soo qaatay waad aragtaa in halka waxa ku yaala rug hilfa ku taala waa ka rugkeed hilfe waa caawinta inuu qofku wadankiisa markaa magaciisa saddexan waa kaas waa ka magaciisi day Maxamed Xasan 2 kirishay waa kaas maxaa kala steeta waxaa sitaayo kale tii safaaraddan la tagay iyo travel documentiga okay dayib waxaan jecelahay marka bal insha Allah Hargeysa aad ku laabatana inaad bal media iyo saxaafadda aad la kulanto oo bal
adu faahfaahisada Yurub waxa yaala dee aan bal dhalinyarada waxa laga yaabaa inkastoo dhalinyaro badan aanay ku qanacsaneen oo ay taagan yihiin dee annaga cagahayga soo saareen oo xaqiiqada soo taabanayna laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa balanay dhalinyaro badan markay muuqaalkaaga daawadaan ay ku qanci doonaan insha Allah adiga waxaan ku rajeynayaa safar khayr qaba Hargeysa family ku jooga xaas bay jooga hooyadii aabahay baa jooga hooyadii baa joogta carruurtaydii baa jooga saawadeed waan idin soo socdaa reer Hargeysa way ku faraxsan yihiin inaad soo laabato Soomaha aad baa loogu faraxsan ما شاء الله annaguna waxaan ku rajeynaynaa maadaama hadda dhalinyaradii magaalada Sangaalan la deganaa in ilaahay nolol khayr qabta inaad Hargeysa iyo familkaaga la bilowdo وانا كوسه دعينا ان شاء الله ودنا هذا دونتده ان شاء الله وانا دي soo xiriiraya aniguna waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan ku sheego dabcan qof wadankiisa hooyo ku laabanaya farxad mooya farxad la'aan aan arkaynin dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogtay daawanaysa dayib waa aniga Maxamed Cabdullaahi Cawada oo dayib u soo raacay bartanka aan uga caawiyo aan ugu turjumo sidoo waddankiisa hooyo ugu laaban lahaa xafiiskan taagana xafiiskii immigration-ka waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh